haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku samaynaya ururka Taliban ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haruun Macruuf ayaa soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinaya. ururka Taliban waxay ku soo laabteen awoodii dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgambisay dawladda Mareykanka iyo xulufo reer Afghanistan ah oo isbahaysanaya. waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof bishii Sebtembar 11 sanadkii 2001. ku soo noqoshada Taliban ee awoodda dalka Afghanistan waxa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dawladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka. dhaqso ay ku burbureen ciidamada Afghanistan, Taliban kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dawladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ka baxaan dalka. Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyay ururka Al-Shabaab. farqu u dhaxeeyo Taliban iyo Al-Shabaab. Taliban markuu horeyso waxa hogaamiyo culamo. Al-Shabaab way bahdilaan culamada, bal way dilaan culamadii markii una seexayaan. waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacmay, Dr. Ahmed iyo rag la midka ahay. talabaad, Taliban waxa u jooga in ka badan 70 mufti halka Al-Shabaab culamadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxan raadinay. tan saddexaad, Taliban wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay sabab yihiin keligii taliyaan tooda keliyana u muuqata. afraad, Taliban waa niman ujeeddo fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay sabab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen. tusaalaha kaaga soo qaado oo waxa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah u soo geliyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummadii si wanaagsan ku dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxaanahu wa ta'ala gacantooda ka bixiyay dhulkii haysteen. xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku wargalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab. runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay marka dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba. laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtun oo kale ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aad ugu adag yihiin oo ay ka sareyso qarannimada iyo wadaninimada. laakiin haddana markaad isbarbardhigto Taliban iyo Al-Shabaab ayaguna way aad bay dhan isaga kala duwan yihiin. Talibanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhaxdhashay oo khaasatan aanan aad uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraan. waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii u ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. mabaadi'doodana ayagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay soo wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay la wadaagaan. ma filanayo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. markii ugu horeysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowga Soviet. run ahaantiina taariikhda dawladaha waaweyn markaad eegto midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaasay ku baaba'day. quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka koowaad ama kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. markii dambena hadda quwad kaleeto aad u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan
maraykanku uu ka cararay isagoo kobala kaga tegay magaalada Kabul maalin dhaweyto sida aan u arkayni. su-aasha la isweydiin kara waxay tahay shabaab iyo taalibaan labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismiidaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaas oo kale shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya? anigu waxaan u soo joogay oo naadawaayo arag ka ahaa maamulka Talibaanka ee Afghanistan. Talibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo daraar way furneed markay maamuli jireen. suuqagu way furnaayeen. meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tagi jiray salaada marka la gelayo dadku salaada u dareeri jireen lacagtii iyo tukaamadii furan bay meesha ka tagi jireen. marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya مثلا waxba dukaanka ka iibsanaysa intaad qaadataad lacagta halka uga tagaysa laakiin wax taabanaya ma jirin wax isdilaya iyo burcadnimada ma jirin oo meel nabad ay ahay. markii aan ku soo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Talibaanka waddanka dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay argagixiso ha noqoto niman tuugo oo burcada ma ha noqoto meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahar baabuur kuma tagi karin ama Jalalabad waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. marka anigu kuma soo noolaan maamul al-shabaab marka ma garan karo siday wax u maamulaan laakiin se ayagu waxay ka gudbeen oo Talibaanku aanay weligood samayn. Talibaanku weligood qarxin ama dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay ku soo qaadeen 2001 weerar gardarro ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyay oo Yurub weeraray ama se Mareykan weeraray ama se wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. in markaad eegto al-shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa markaad eegto meelo badan oo aanay deganeen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood. Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yiraahdaa yuusan ku jirin qof u dhashay Afghanistan laakiin haddana de waxay gabaad siiyeen waddankooda ka soo duulay al-Qaacida oo weerarkaas iyo kuwa kaleba ka geystay caalamka. khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhaweeyeen dad kharboodaya ama se qarxinaya ama se dagaal ka wada wadamada shisheeyaha wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha taasi way ku khaldanaayeen. khaladka ay sameeyeenna gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin haddaanay jidkaasi khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladyadyo badan bay sameeyeen oo ma odhanaya anigu Talibaanku waa sax waxaan isbarbar dhigayaa waxa ka jira Talibaanka iyo meelaha kale. waxaad oran kartaa khaladadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen runtii waa laga hor imanayaa. dagaalka Afghanistanna ma dhamaanayo mucaaradnimada Afghanistanna ma dhamaanayso rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhamaanayo laakiin hadday way aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawac u geysanaya way weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan dadkuna way daalan yihiin oo way tabaalaysan yihiin. wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 oo askari. ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 oo askari. ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 oo askari halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. su-aashu haddaba waxay tahay markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar tiro iyo qalab ciidanba aad uga heer sarreeyay kuwa Soomaaliya ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan al-shabaab? gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab. ciidanka dee wax
badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtidba maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto hadda markaa isbarbardhigsid awal dhimashada haddaa fiirisid Amisom ba aad u badnaa ama qarax hadday ku dhintaan ama bulshada maaragtay maantana waxaa weeye ciidanka Soomaaliyeed kuwa howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aad u badan marka haddii Amisom ka baxaan runtii waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaaranayo laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalidu welina cunaqabatayn baa saaran Soomaaliya marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamay waa runta anaga cunaqabatayn baan saaran helicopter saas ma haysano diyaaradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano laakiin ciidankii infantryga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid isku hub haystaan waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed laakiin tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya hadda tusaale oo kale markay Mareykanka ka baxeen dad badan baa waxay isdahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragtaa hadda si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgaladooda way sii badiyaan wax Amisom kuma jiro waxa ka socdo goobo badan oo galmudug ay kamid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta koylatanaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga daraawiisha sidoo kale wada shaqayn fiican baa ka dhaxaysa wana shaqaynayaan wax Amisom maaragtay oo gacan siinayo ma jirto waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in al-shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada Amisom baxaan xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya taasi shaki kuma jiro waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha ciidan isku duuban ma aha waa ciidamo qoys ka kala yimid oo isugu yimid qadiyada ay u dagaalamayaan oo daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin maalin dhowtaabad ayaad arki kartaa maalin dhowto markii magaalada Muqdisho la isaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen u bay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo ama se wadanimo dheeraad oo loo dhimanaya ama loo dagaalamaya ma jirin waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray ciidamo la isu soo ururiyo tababar fara badan la soo siiyey oo hub fara badan la soo siiyey bay ahayd 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey laakiin se moogtahay dagaalku waa qadiyad haddaanay qadiyadaanad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid marka noloshaada ay ciriiri gasho waad iskaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa marka ilaa ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qarannimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeye ama se aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guulaysanayaan ciidamada al-shabaab sababtoo al-shabaabku way isku duuban yihiin way midaysan yihiin hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan shaksi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan khubarada ka faaloonaya awoodda soo noolaatay ee Taliban waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taliban ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wada hadaladii Taliban oo kale haddii ay taasi jidka u xaareyso inay awoodda qabsadaan isla markaana Soomaaliya ka saareyso ciidamada midowga Afrika xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wada hadallo siyaasadeed galaan walaahi taasi ma muuqato sababtoo Talibanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale Talibanku ma farageliyaan shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood waan siyaasadeed aan galno ma jiraan madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo way xoog badan yihiin waanay jiraan laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysa tan Taliban
Taliban waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka. Pakistan ha ka jireen, hataa Iran ha ka jireen, bariga dhexe ha ka jireen, dowladahan Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. Marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo, lala shoori karo, madax lala shoori karay leeyihiin. Marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto ama se ay ka fikirayso. Ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, wixii kaleete ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano, culays badan ma ay saarin xagga siyaasadda iyo diblomaasiga. Marka ay markaa usoo jeedsadaan xagga diblomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xiriir la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadaheeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtogeli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee Talibaanku ay qaadeen. haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka Afghanistan? maxaa qalad dhinaca istiraatiijiyada ah ee dowladda Afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda Soomaaliya? gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya. waxaan u maleynayaa cashar waxaa noqon kara in heshiiska waxaa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo Mareykanka uu hogaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationkii oo ay sameeyeen Qatar. labadaas arrimood waxaan u maleynayaa cashar inoo tahay inaan haddii oo in wada hadal la galin qoladaas xaq jirka al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weliba iyo Qatar in maaragtay hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxa kaliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taliban ba ka faa'iiday arrinkaas dowladii Afghanistan qayb weyn kama ahayn marka in hadda waa la hadal haya marmar su'aalo badan la isku soo qaadaa wada hadal ma la fur kara shabaab aan mar walba su'aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado aan qabaa sababta ah sidii hadda heshiiskaas iyo wada hadalkaas u fashilmay mid la inaysan dhicin taas casharna noqon kartaa. ka hor inta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore, Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayay inuu wada hadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo. sidaasi waxa tabisay jariidada New York Times. Mareykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka Qatar, hase yeeshee arrintaasi waxa ay ka dhicisooday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times. inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye, khubaradu ma aaminsana inay taasi ka suurtageli karto ururka al-shabaab. al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah. sidoo kale al-shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.